heestaas halkaasay ka dhalatay fikir kalena wuu jiraayo heesta caawiyey inay dhalato oo ku saabsantay inay yaroo faqiir ahaa ayaa kalluun ku soo baxay badda ka soo baxay isagoo gaajoonaya muu cuninba miskiinka iska badbaadi wili uu nool yahay haddaanu dhimano baddii buu ku celiyeyba iska dhaafay wuxuu ku soo baxay shimbir baalka ay qodaxi ka haysato shimbirta qabo qalab muu odhane intuu ka furay buu yidhi iska sii daa waa nool ilaahay dabeetana haddana wuxuu ka soo baxay quraanjo ooman biyo yar buu siiyey dabeeta haddana iyadiina biyihiibay dabeedna iyadiina cabto wuu iska dhaafay hooyadii buu tago wuxuu ku yihi hooyo waxaan doonayaa inanta boqorka inaan guursado inanta boqorka inaan guursadaan doonayaa arshka joog ka daa heli maysid wax walba akhriday markay aragtay inuu ku hal adag yahay ayay tiri ku soco dabeetana boqorkii unbuu 2 bilood yidhaahdaa boqorkaan doonayaa sheeg maxaad ka doonaysaa arrin muhiimaan u hayaa boqorkaan doonaya arrin muhiimaan u hayaa maalin walba hala celiyo wuxuu yidhaha boqorkaan doonayaa boqorka maxaad ka doonaysaa arrin muhiimaan u hayaa ma garatay dabeetana maalintii dambe ayaa boqorkii lagu yidhi nin 2 bilood halkan le arrin muhiimaan u hayaa soo daaya buu yidhi wuu soo daayey dabeetana waxaa lagu yidhi boqorkii baa yidhi maxaad doonaysay arrinka muhiimkeed wadii muxuu boqor waxaan doonayay inantaada inaad ii dhisto aan guursado dabeetana boqorkii baa yidhi yaa boqorkii wuxuu yidhi shuruudaha ku xidhan haddaad ka bixi karto guurso shuruudaha diyaar mooto inaad ka baxdo haa dabeetana waayey buu malaade waxaan is idhi dalkooduna wuxuu ahaa mid ay ceeb tahay inanta haddii ay ninku weydiisto tiraa sidaa dhaqankeenu dhigayo dabeetana ceeb boqortooyina way ku jirtaa gadbad sonkora buu soo qaado meel ciida buu saa ugu daadiyo wuxuu ihi sonkorta iyo ciiddaas oo kala gur inta waxaani ka dhabiyayna wuu tijaabinayaa baan is idhi yaa dabeetana waaye waan kala gurayaa buu wuu dul fadhiistay sonkortii iyo ciiddii inuu kala guro isagoo yaabanoo si uu kala guro garan laha ayuunbay quraanjo timid oo midhi quraanjada berigii waraabiyey ayuunbaa isna maalintiisii u abaal gudayoo way qaaduno jooyadiin bay buuxisay boqorkii buu yidhi waa tan gadbadii meeshii baa la eegay mise midhiba ma yaalo gadbado kalena lama soo gelin day dabeetana halkii ayuunbuu dabadeedna ku keenay yaa meeshiina ciiddii laga waa sonkor yaa midh sonkore laga soo waa ciiddii halkan ciiddiina sonkortiina la baadhiyo midh ciida laga waa yaa arrin yaaba bay noqotay shuruud kalaa ku hadhay baa layidhi ninka taa sameeyey dabeetana inta badda ay laashu raaceen buu fargalkiisii intuu iska saaray buu saagu dhex tuuray ha suu yidhi fargalkaa badda ka soo saar waa shuruudda labaade waayey buu yidhi dee baddii buu iska dul fadhiistay xabaddii kalluunka ahayd uu ka saaray oo fargalkiisii daaman baa saagu soo tuurtay isagoo badda xeligeeda jooga uu qaaday boqor waa kan fargalkaagii fargalkii yaaba waa isaga laftigiisii yaa dabeetana waa ka yidhi shuruud kalaa ku hadhay wax dalkaba yaalla haw tiri ninkani jasiirad heble la yidhaahdo geedka ku yaala ee caanka ah ubaxiisa caanka inaad soo geyso jasiiraddaa wax tagaaba dalkama joogo waayey buu yidhi isagoo geed iska hoos fadhiyo yaaban unbay shimbirtii yarayd oo laalaadinaysaa saa ugu tuurtay dabeetana geedkan waa la isla garanayaa uu garanayaa intuu geeyey boqor waa kan boqorkii baa yaabay waan ku siiyey inantii waxjooyin adag buu ka soo baxa wasiiradiisii iyo dadkii ku xeernaa iyo wixii baa yidhi miyaad waalanta mee ninka faqiirkaabaad inanta siinaysaa macaynkan waxaana la akhriyey dabeetana wuxuu yidhi waxaa jira dad hibooyin dheeraada leh shuruudahan ku xidhay yaa ka bixi kara idinku jira waa kane halkii buu inantii ku siiyey dabeeto xayawaankuna abaal bay leeyihin abaal raagay rag baa leh abaal baaqdana dumar baa leh abaal soo dhaqsadana xoolaa leh ayaa la odhan jiray dabeeto
dumarkuna inay abaal leeyihiin xayawaankuna abaal leeyihiin oo aynaan abaal rag baa la odhanin baan ka soo horjeedaa halkaasay ku qodantahay waay abaalka ciddii loo galaaba way soo celisaa waay cid soo celisiyo cidaan soo celinba way jirta laakiin cid dumarna wuu soo celin karaa wanaagsani xayawaankana ilaahay wuu kaa siin karaa maxaan ku dhahdaa bisad aad rabaysaa bahalkaaga qaybtatay maalin geed la beertaad harsataa wax badan oo abaalkii ku celiya barkad ceel la qoday baa barye laga cabaadiyey ma garatay oo bisad aad rabaysaa bahalkaaga qaybtatay iyada waxaas oo dhan waa abaal celin isguuriga soo galay bay dee qabanaysaa ha ma fahantay dabeed marka abaalka lama dhayalsado xayawaankaad gashataa dhirtaad gashataa abaalkaad u gashataad ka helaysaa xayawaankaad ka helaysaa dumarkaad ka helaysaa raggaad ka helaysaa ubadkaad ka helaysaa ummadda kalead ka helaysaa marka adu abaalka garawn marka heestu saasay kusoo baxday waay laxanka heestay u sameeyey maxamed biig ayaa sameeyey waxaa eryadeeda ka mid ah kolley iyo kolley ruuxii damiirlee dadnimada yaqaana dawgu kama habaabe dowlad iyo bulshiyo qofkay doontaba ha noqotee doqon baa abaal gadi intay dunida joogtee waxaan kula dardaarmoon dabaday jirana faray dad qofkii wax kugu taray daacad kuugu hagar baxay kaaga doonay meel adag wuxuu galay wax doorsada si ka diran ugu celi hadduu diida waayuhu noqon ruux ku dayn baxa dibnihii iyo afkiisoo ducaa ugu abaalguda haddaad wax kaloo aad ku gudi weydo nabigaa yidhi qofka abaalka kuu gala u gud haddaad u gudi kari weydo u ducee waay waxaa jirta weli fanaaniintii waaweynaa baynu haddana mar dib milicsanaynaa xasan aadan samatar oo kamid asna foolaadka fanka xasan xaggaad ku kulanteen xasan aadan samatar anuu hargeysa jooga ayuu igala soo xidhiidhay jabuuti dabeetana dad baa xilligaa markaa heeso xaflad ka dhacayay munaasibada ayuu iga soo codsaday 2 heesood baan u diray xilligii 2 heesoodoo caleemasaar madaxweynaha ismaaciil cumar geelu jabuuti la joogay ayaan u diray dabeetana بالأمارة هسه مرقل وتجي حمر يا إسقي أحمد علي عقالي وكحية عوالي وفرمات شال كل ما هست حسن هذا السمت القادي إسماعيل معيرومي iyo heesti kale ahayd malyan iyo la jeer baan ku niri malyan iyo la jeer baa ku jirtay madaxweyne bay ahayd waqti mar kale qaranka si maamul dabeetana heesta dalku kaama maarmee ayaa ku jirtay ma garanaysa maantana qaranka si maamul ereyadaas ka mid ahayd mar labaad caynaanka si hay marka munaasabada caleemasaar dalkii qabtay ahayd oo dib loo doortay أنا أدم أقول وذي لكن طلقي بعد دبلو قبته طلقوا كامل مارمينه مركها قرن كسيمة عمل بانر وأكون مرة بعد لقوا طورتين أنت وضلك وارك يا سجى دنتي سدوسي وضيع حسن هذا أنت هنا كبحين حسن وحنودي بهست عن كياروس كيف يعرس ليلا كوكا كعنو كو وذا كعنو كو بقادين كيف يعرس وحكم بهست كلاس صوب ليلا يوين عروس عن قبل يا ويلك علف كوسانتي عاش صوبان هلايو وحو مولى كوغو سمي ساده سميرو دلاتو سنجيgeedu wacanyo sodonkii quraanka iyo sunna lagu canqariyo sida loo barbaarshaa kuugu filan sareede sayid noqo ilaashada sida wali karaame sida sabi sawaale sida hooyo waxusi sida hoobal ugu hees saaciidadeedaad ragba kaga sareynaya sida boqorad maamus أنت هضيع وي أنا حكى شيء أنا ما شاء الله أنا كنا مطيعين يمكن مريكن كي ولدك ينو وسيدوا عننا ما شاء الله الله ويلي يعانا قبل يعانا وياي واحد شفته هاسه سويرة عشيب سوق دويه واحد شفته هاس هركيسة عادو سماي سي هذا واحد شفته هاس يدون حافلة حافظ كسي ورمي سكارة وأي قادان سلطان سيرار يو سارة إليس بلا بدأ هاس صوت كور iyaguna kamid ah fanaaniintii aynu soo taxnay heesu waan labadaasi way in yarun baan yasna samayskooda iyo laxankooda iyo xun ma ka hadli doona way
heestaa Suldaan Seeraar baa lahaa laxamkeeda isagaan u soo diray anigoo xadka Beligubadle joogo oo halkaa iska joogo Hargeysa igala soo hadlo yidhi waxaan leeyahay habeenka Suldaan Seeraar iyo hablaha Hargeysa uu qabanayay show dabeetana inaad hees baan u baahanay Hargeysa ka hadlaysa dabeetna heestaasaan soo diyaariyey dabeetana heesta waxaa ku jirtaa haaf London ay Hargeysay xawaad loo hiraayo guryo sama haboonay way xaafadeedu way badan yihiin saddexda daamood ay ka koobantahay baan daan walba xaafad magacyadeedii ka soo qaatay dabeetana inta kalena hibooyinkeedii iyo hawadeedii iyo hablaheedii iyo quruxdeedii iyo nimcooyinkeedii iyo diinteedii iyo waxyaalihii kale ayaan ku daray dabeetana aad baa maalin habeenkaa ninka aan uga tiirinay xafladda dabeeto taasi wataa ta kale habboonay Hargeysay inantaas Araylays la yidhaahdo Jabuuti noogu timi annagoo albanka iyo diyaarinayno oo Cabdiqaadir Jubba iyo la fadhiya Araylays waxaa la igu yidhi inanta markaa munaasabad aan markaa Jabuuti ka dhacayn ayaa lagu soo jabiyay oo lagu yidhi waad ka heesaysaa inantana anigoo yar baan kooxda gaashaan la yidhaahdo ee ciidanka qaranka ku wada jirin dabeetana waxaa lagu yidhi nin aad isku kooxaydeen baa ku doonaya markii sangu baa ii sheegay Allah yarxam raximin dabeetana u yeedh baan idhi intaan isu galaas ahayn isku kooxahayn uu iigu yeedhay inantii mar kooxdii bay Itoobiya ka baadhay nin Ismaaciil la yidhaahdo baa lagu yidhi dabeetana markay noo timid bay garatay dabeetana ka bacdi halkii ayaan inantii kusoo anbabixiyey baasaboorkeedii iyo logo laga qaaday uga soo qaaday dabeeto way qalaydoo diyaarad ku soo saaray markan heesta u dhameeyay heesta markaa laxamka waxa saaray jaamac baqayo laakiin inta dhaqanka oo qaybta horena baan cadatay qaybta dambana ay batartay sangu baa ku rakibay miisiga waxa afka ka sameeyay Juba waxa tumayay Daawud iyo Aalta iyo CD iyo Naasir Cabdulla Cabduuna uu duubayay marka jiibtana iyaga ka qayb qaadanayay Juba iyo Sangub iyo Aalta iyo nimankaas dabeeto markii dambe heestu naga soo iyadu qaaday aan u duubnayna markii dambena xagga recordingka muuqaalka kamarada waxa aad ugu faryeelistay Cali Jibriil Xirsi waxa isaguna qaybta qurxinta ka qayb qaatay ninkan xildhibaanka Rambo la yiraahdo isaguna qayb ka qaatay waxa ka qayb qaadatay Khadra Khalil iyo kooxdeedii Sokso oo aad iyaduna u ciyaaraysay dabeetana ay hoo heleeyo halabuurkii wuxuu yidhi heleeyo codkaasi waa baarcadde laxamkii baa la gelayaa habboonay Hargeysay ma garatay xagga dambe heestu waa caano ma doonayna midhaheeda sii wada akhriyo xagga dambe haddana wuxuu ka gelayaa heley herariye Hargeysabay ninka u sameynaya labada dhaqan geliyay batriya baarcadda la yidhaahdo waliba baarcaddaanu xagga hore geliyey maaha mid caana وخبيرون باكيني كرا بارعدها وحين كنا قاني هي هي هو بيوا كاسيو هلو هو غاغا نوع اسوا اي هو هلي يو بارعدها اي انا صور كرا او خبيرنimadiisa muujinaysa wuxuu sangubaha macallinkaygi baray heesaha ciyaar dhaqameed la yiraahdo wuxuu i baray 120 ciyaar dhaqameed oo nimanka 80 ka adagay aniga laftii imka 80 ka adagoo de library dana xagga ciyaar dhaqameedka afartan baa ka yara muruxsaday afartan baa iga muruxsaday sidaa wuxuu sii sheegay konton uu waliba ka dhex sameeyay oo 170 ciyaar dhaqameed buu sii sheegay